5 maskaxdu way beddeshaa si ay uga gudubto marxalad adag. Qof kastaa wuxuu maraa wakhtiyo iyaga beddela. Waxaa laga yaabaa inay tahay qof la jecel yahay oo lumo, ku guuldaraysta shay si adag loogu shaqeeyey, oo uu dhaawacay qof la aamini karo, ama dareemaya in noloshu ay hoos u sii riixayso mar kale iyo mar kale. Wakhtiyadaas waxay u ekaan kartaa mid aan macquul ahayn in horay loo socdo. Maalin kasta waxay dareemaysaa culays. Qaar kale waxay u muuqdaan inay dhoola cadaynayaan oo ay sii wataan, taasoo adkaynaysa inay fahmaan sababta ay uga duwan tahay gudaha. Waxaa laga yaabaa in xitaa ay jirto rabitaan ah in dib loogu noqdo qofkii jiray ka hor inta aysan dhicin dhammaan. Laakiin runtu waxay tahay, xanuunku wuu beddelaa dadka. Mararka qaarkoodna, isbeddelkaas wuxuu noqon karaa mid wanaagsan. Waxay keeni kartaa naxariis badan, xoog iyo iswacyigelin. Waxay muujin kartaa xoog aan weligood hore loo dareemin. Xanuunka waxaa loo isticmaali karaa in lagu bogsado, lagu koro, iyo in laga gudbo si fudud oo lagu noolaado xoog ka weyn sidii hore. Hakarin waxaa la dareemayo. Marka ay wax ku dhacaan, way fududahay in la iska dhigo wax walba inay fiican yihiin. Dhoola cadayn ayaa la saarayaa, waan fiicanahay ayaa la yidhaahdaa, xitaa marka wadnuhu dareema culays. Laakiin ku haysashada dhammaan gudaha waxay ka dhigtaa xanuunka sii kordhaya. Oohinta, la hadalka qof ama qorista dareenka ayaa ku caawin kara. Ogolaanshaha shucuurta in si buuxda loo dareemo waxay ka qaadi kartaa hoogaa xanuunka ah. Raadi casharka, xitaa haddii ay adag tahay in la arko. Haddii aad rabto warbixintan oo kale, fadlan guji sabskaraabsi. Aad u hesho warbixina intaan ka badan, ha iloobin inaad nagu soo biirta. Mahadsani. Raadi casharka, xitaa haddii ay adag tahay in la arko. Khibrad kasta oo adag waxay xambaarsan tahay cashar, xitaa haddii aysan marka hore muuqan. Waxaa laga yaabaa inay muujiso kuwa saaxiibada dhabta ah yihiin, baro samirka, ama waxay tusi kartaa waxa dhabta ah ee nolosha muhiimka u ah. Ka beddelka su'aasha, maxay tani igu dhacday? Maxaa laga baran karaa tan mustaqbalka, wax ka beddeli karaa sida xaaladda loo arko? Xanuun galficil. Xanuunku wuxuu kobciyaa tamar badan. Halkii laga yeeli lahaa inay isu beddesho cadho ama rajo la'aan, tamartaas waxaa loo gudbin karaa wax macno leh. Jimicsiga, rinjiyeynta, bilaabista mashruuc yar, ama barashada wax cusub waxay kaa caawin kartaa abuurista dareenka horumarka. Xataa tillaabooyinka yaryar waxay wax ka dhigi karaan kuwo fudud oo la maarayn karo. U dhowow kuwa wax dareensiiya ammaan. Qofna ma aha inuu wajaho wakhtiyo adag kaligiis. Inaad ag joogtid dadka danaynaya, dhegaysta, oo soo celiya dareenka raaxada waxay samayn kartaa isbeddel. Waxay noqon kartaa qoys, saaxiibo, ama xitaa bulshooyinka taageera online. Mararka qaarkood, in si fudud loo ogaado qof fahmaya waxay fududaynaysaa in la qaado miisaanka. Xusuusnow xooga hore. Dib u milicso wakhtiyo adag oo mar la dareemayay inaan macquul ahayn in laga gudbo, laakiin laga adkaaday. Caqabadihii hore waa la soo maray oo waa la badbaadiyey. Taasi waa caddaynta xooga. Xusuusahaas oo maskaxda lagu hayo waxay keeni kartaa geesinimo maalmaha ay wax walba dareemaan culays badan.